السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سوماليين مeel walba ay joogaan waxaan leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka macalin JK ee sheekayar official macalin JK aad soo fadhiista waxyaabo badan ka sugaysiin waa ogahay okay anigana diyaar waxaan u ahay waxa waqtigaas inoo socda in aan ka hadlo maanta barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa gabadha lagu magacaabo Maryan Axmedey waayahay Maryan Axmedey waa wada naqaanaa balse su'aashu waxay ka taagan tahay Maryan Axmedey waa gabar noocee ah waa la yaqaanaa waa gabar aad u qurux badan waa gabar YouTube-ka aad mar walba ugu soo muuqata waliba dhanka TikTok ayay waxay ka tahay superstars okay Maryan Axmedey marka waa gabar noocee ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشان waxaa hambalyeena walaasheeda qaaliga ah Maryan Axmedey taageeraha saas ugu qulquleen ma sha Allah abay kisto ma iga siisa anigana waxa kule walaashay hambaliyo intaas in ka badan waa gaaraysa anaa huba sanadka dambe waxa laga yaabaa inaa 1 milyan iyo ka badan kuga hambalyeena marka waxa ku leeyahay bes كثير بالليل يعني المكان هيك وخلص هيك بتحس انه المكان بيختلف وبصير حلو كثير السما بصير شكلها حلو زي ما احنا شايفين adiga quruxsan qarniga ablaaqaad usidata dayman qaali baa tahay adiga quruxsan qarniga ablaaqaad usidata dayman qaali baa tahay qiyaasi kare qiimahaad iga mudan tahay qiyaasi kare qiimahaad iga mudan tahay sida qaylkoo kala dheereysay sida qaylkoo kala dheereysay qiyaasi kare qiimahaad iga mudan tahay qiyaasi kare qiimahaad iga mudan tahay sida qaylkoo kala dheereysay sida qaylkoo kala dheereysay ima yeelaya intan qoystu milaha naftaydu qasaarinay anaa qaato ka tegay horta naga caanka ee famousyal lehne xiriir ma laha badnaa single waay maxay ku noqdeen makasiisiin nimankaaba ka cabsadaan ayagoo rabaa nimanka naga kusii dhareeraya way ka cabsahayaan isdhahay naagtan xiriir hamay leedahay naagtan kibir leewaay naagtan shanina isku wadaa naagtan ama naagta kale iyagu ogaataa naagtan naagta kale oo aan luuqa oo ka shukaansa hooyo hamaa oo iyagu maqasha waxyaalo badan nimankaas dada waxay yiraahdeen way qurux badan tahay laakiin dabeecad ma lahan
isla weynaa ku jiro dadka haystaa iyo waxyaabahaas dadka qaaraa dhaheen. Okay, dadka qaarna waxay dhaheen been baad sheegaysaan, gabadha dad ma yeesto, ma kibir badna, isla weynina kuma jirto. bal dadkaas marka aan kala saaro, run ahaantii horta Maryan Axmedey waa gabar aad u qurux badan, waa gabar sharaf leh, waa gabar aadaab leh, waa gabar dadka dhan ay u siman yihiin oo Soomaalida dhan ma kala socna, isla mid ayay dadka ula dhaqantaa. Maryan Axmedey horta waxay ku caanbaxday dhanka iyo TikTok. teeda kale saloon ayaa u furan ama bukiyeeri ayaa u furan, waa la wada yaqaan. labiska maasha Allah tabaaraka Allah, siday usoo labisato iyo qaabkay iyada isu soo sharaxdo, gabdhaha horta markay arkaan ayba ku daataanba in ay ayada u tagaan oo ay usoo labisto misna ay sharaxaad u samayso. Maryan Axmedey dabeecadaheeda haddii aan ka hadlo, waa dabeecadda ugu wanaagsan dadka leh ayay ku jirtaa. way ku soo dhaweynaysaa hadday aqoon kuu leedahay iyo haddaysan aqoon kuu lahayn, labadaba waa isku mid. run ahaantii waa gabar isu darsatay qurux, dabeecad iyo weliba aadaab. aadaabta waa ay ku dheer tahay, waxaaba sii dheer wanaagga qofka waqtigaas la jooga ay u samaynayso iyo siday u soo dhaweynayso. dabeecaddeeda wax la siista ma lahan run ahaantii. teeda kale qayb kale ayaa jirta ayagana oo dhahaan gabadhu TikTok bay duubtaa, TikTok ay ku jirtaa, fankay ku jirtaa, ma wanaagsana. horta TikTok waa hobby, fanka waa hobby. qofka hobbigiisa uu noqon karaa in uu fanka kusoo biiro, qofka hobbigiisa uu noqon karaa TikTok inuu ka hadlo, oo waa comedy oo caadi, waa la baashaalaha caadi waaye. laakiin ogaada, qofka TikTok soo gala ama fanka ku jira qof xun maaha. qofka asagaa is xumayn kara, asagaa is wanaaji kara. TikTokna hadda rag iyo dumar waa loo badan yahay. gabar arkay way soo istaagaysaa, waxyaabo shactaray sheegaysaa, wayna ka baxay. qofkaas xumaan ma lagu tilmaami karaa? maya, laguma tilmaami karo. qofaas soo gelayo riwaayad yar oo sikima soconayaan ay samaynayaan, ama waa wiil iyo gabar, ama waa laba gabar, ama waa laba wiil. hobbigaas oo keliya meesha laga fiirsanayo ayay leeyihiin, bis in ay macnaha ayaga wejiyaalkooda iyo muuqaaladooda ay horumariyaan. marka qofka TikTok soo gala waa xun yahay yaan la dhihin. Maryan Axmedey run ahaantii dhanka TikTok aad ayay ugu wanaagsan tahay. waa dadka kusoo shaacbaxayba, waa dadka aan isdhihi karno fara ku tiris. TikTok ayayba qurxinooyin, quruxdooda TikTok ayay qurxinooyin. marka TikTok hadda waa waqti dhow, laakiin Maryan Axmedey waxay kusoo caan baxday Instagram-ka. muddo dheer ayay soo jiitamaysa weliba. quruxda horta ilaaha dadka siiyo, labiskana qofka waad arkaysaan dadaaba designer la dhahaa, macnaha labiskaas ayay u qaabilsan yihiin dadka inay labisaan, ayaga inay labistaan. marka taasi xumaan maahan. horta run ahaantii waxaa jiro qof qurux badan aad arkaysaa, qoftii niyadda ayaa gashanaysaa, waxaad is leedahay bal ka waran qoftaan haddaa ku dhacdo, is leedahay walaale mustaqbal inaan kula wadaagaan rabaa. aaday u qurux badan tahay, aad iyo aad weliba. qofka waqtigaas ka codsanayana oo raba inuu ka codsado, macnaha
saas uma qurux badna okay intaansan la gaarin marka gabadha intuu u tago oo arrintiisa u sheegto ayuu wuxuu leeyahay waryaha isceebeeni bal fiiriya asagaa dib isu dhigay wuxuu leeyahay war subal hawtiga qoftaan saan u qurux badan oo saan u labisan haddii adiga aad tiraahdo walaalay bal ka waran mustaqbalaan rabaa inaan kula wadaago waxaan rabaa inaa adduunyo kale aan galno markaasuu leeyahay hadda jawaabta kuu soo baxday waxay ku leedahay waryaa qaabkaaga ma isfiirisay camal jaa isagaa niyadda iska dili qoftaas quruxda badan oo siday usoo labisatay dadka dhan ay la yaaban yihiin waxaa macquul ah in ayada lafteedii ay raadinayso qof un dhaha mustaqbal ayaan kaa rabaa noloshaan rabaa inaan kula wadaago intaas qof isku soo dhiiriyay ayay sugaysaa adiguna maxay istiri haddaa sidaas aad dhahdo waxay ku leedahay waryaa soconiyo yaqay adiga qaabkaaga iyo may marka qofka quruxda badan ma kibir badna isla weyne kuma jirto adiga haddaad adiga isxaqirto oo aadan tegin war adiga hor istaag waxaad leedahay walaalay aniga waan kaa helay waxaan rabaa mustaqbal inaan kula wadaago wixii kuu soo baxa ka qaado khayr iyo khasaaro laakiin niyaddaa iska dil run ahaantii hadalkaas waxaan u keenay waxaa la yidhi qofka socda war walba wuu helayaa aniga waa iska socod badanaya sababtoo a shaqadayda qaar waxay ku xiran tahay socodka waxaan arkay rag fara badan iyo dumar weliba in ay dhahaan qoftaasa war qof wanaagsan maaha war qoftaasa way kibir badan tahay qoftaasa isla weyniyaa ku jirto war qoftaasa war maxay tahay sideedaba tiktok ay dhex joogtaa instagram ay dhex joogtaa war walaalayaalow codada idinku jirto maxay tahay gabarta sababta u xasdaysay war gabadha waa fani gabadha waxay kasoo bilawday bukuyeer gabadha markay bukuyeer joogtona waa fani waa qof furfuran waa qof bulshada jecel mar walba waxay jeceshaha dadka inay u imaadaan marka idinka waxyaabahaas xaggeed ka soo xigateen ma iyadaa u tagteen oo idin war xumaysay ma ayadaad wax badan ka aragteen horta qofka inuusan isla markii go-aan gaaro oo waxyaabo badan qof walaalkiisa ah qof walaashiisa ah inuu ka sheego waa laga wanaagsan yahay boqolaalaan arkayaan ku leeyahay boqolaal ma ahan 2 iyo 1 iyo 3 iyo 4 ma ahan dad badan oo rag ay ku jiraan marka waxaan leeyahay kulleyba adres khaldan ayaa ku dhigantihiin wallaahi billaahi tallaahi Maryan Axmed waa gabar aad iyo aad u furfuran wanaagsan dabeecaddeedana aad iyo aad aan macnaha aan isdhihi karo dadka waxa ay ku jirtaa dadka ugu dabeecadaha fiican marka adiga kulley meeshaad ka aragtay ma aqaan iyo uqdada kuugu jirta run ahaantii aniga haddaan ahay macalin JK anigoona weji iyo wanaag aana ka diyaarsanaynin gabadhu intaan ka arkay ayaa igu filan waa gabar aad u wanaagsan waa gabar aadab waa gabar xishmad leh waa gabar dadka jecel mar walba waxay jeceshahay dadkii u imaada inay soo dhaweysa qofkii la hadla inay soo dhaweysa darada ugu dambeysa cabdirashiid deeyaha anigoo riwaayo ku duubay meeshay taagneed waxa uu yimid nin cabsan way baqday horta markii hore markay aragtay aniga dhankeeda inaan usoo dhaqaaqay ee isdhiirisay hayay tiri maxaa dhacay maya inaan ku fiirsadaan rabaa haa fiirsashaale moohay tiri haa ifi fiirso meeshaanan taaganahay wargabar qurux badanaad tahay waa la ogyahay bal fiiri qofka cabsan ayay si wanaagsan ula hadlaysaa qofka miirkiisa timaamka uu yahay ka waran marka qofka xumaan uusan lahayn haddaad dusha ka saartid kolley dembigaas adiga unbuu ku kooban yahay bal wax yar ila daawada Maryan Axmed oo xoogaa yar hees
waxaan ii wadaa 4 talo oo haweenkii intaa seexanin ka hor aad samaynaysid. Number 1 seexo adigoo rabbigaaga u tooba keenaysid. Number 2 seexo adigoo xisaabiyay naftaada. Number 3 cafi cid kastoo ku dulmiyay. Number 4 seexo adigoo ku fikraysid la kulanka alle. alla ilaahay waxbaa ka dhacay marka yaana ku dheeraanin amaanta Maryan Axmed waxaan idin leeyahay qofka markuu qurux badan yahay ma sha Allah dhaha dabeecadiisa haday qurux badan tahay ma sha Allah dhaha yan sharaaciyada iyo dariiqyada inta la istaago yan qofka la dacaayadeenin barnaamijkaygu maanta waxaan ku soo qaatay Maryan Axmed waa tahay tan iyo kulanti dambe waxaa idin leeyahay amaan Allah